بسم الله الرحمن الرحيم casharkan casharkii ku horeeyay ee Windows-ka waxaan soo baranay qaabkaan ku ogaan karno computer-keena waxa uu yahay uu ka kooban yahay Windows-kiisa iyo features-kiisa gudaha wixii ku jira casharkan casharka xiga waxaan ku baranaysaan maanta display waxa la yiraahdo display sidaan hore idinku ballan qaadayba maanta waxaan caawa galaynaa display sound iyo notification marka display markaa ku dhufato waxa ku soo baxaya display brightness and color oo macnaheedu yahay haddaad rabto iftiinka computer-ka inaad ka yaraysid ama aad ku saayidisid labadaba waa samayn kartaa waxaa kaloo la isticmaalaa mararka qaarkood habeenkii xilliyada habeenka ah waxaa la shitaa night light oo ah si uusan indhaha kaaga qaban on baa leedahay waxaa isbedelaysaa shaashadii oo waxay ku noqonaysaa midabka pinkiga waxa xiga scale and the layout-kan wuxuu bedelaa recommendation hadda recommended buu taagan yahay sida ugu wacan weeye size-ka iyo textiga iyo programmada qaarkood weliba items kale haddaa halkan ku dhufato hadda 25% waxay noqonaysaa shaashadu wax weyn laakiin recommended waxa ah 100 waa soo raacaysaa isagoo advanced hadda display resolution-kan haddaa sii guda gasho kuwa badan baa ka choice garaysan kartaa laakiin hadda wuxuu ku saaran yahay 1366 oo lagu dhuftay 768 sida caadiga hadda uu shaashadeena computer-ku ku saxan yahay kuwan kalena waa samayn kartaa kaarta ka dhigan kartaa laakiin display-ga muuqaalku wuu ka bedelayaa marka waxa inoo xigi doonaa iyadana haddaad rabto inaad sii guda gashid setting-ka dib baan ka qaadan doonaa display advanced display setting-ka waxa inoo xiga marka sound haddaan tagno sound-gu laba nooc waaye midna waa wax computer-ka gudihiisa aad gelinaysid oo coda waxna waa wax computer-ka banaanka uga soo baxaya for example halkan sound output waa speakers-kii microphone-kii iyo wixii la mid ah haddaad damacdo inaad yarayso codka ka soo baxaya computer-ka halkan ka jari kartaa haddaad rabtana waa ka yareyn kartaa simply input device maxaa noqon kara input device waxaa noqon kara microphone-ka hadda codkan aan ku hadlayaa waxaad ka dareemaysaa test microphone-ka codkaygu sida uu marba xawaare u sameynayo delete-kan hadda aad u jeedaan waa microphone-kii mararka qaarkood ciladaha ku yimaado troubleshoot baa lagu sameeyaa halkan waa manage device-kii haddaad rabto waad ka bedeli kartaa haddaad hoos usii degto oo aad ku dhufato advice reference-ga waxaad usoo gelaysaa codadkii kan waa ka yareyn kartaa halkan sida mar walba speaker microphone default-ga rasmiga ah ee ay joogaan midkiiba hadda waa 100% programka hadda aan wax ku duubayaa wuxuu taagan yahay 100% computer system-ku codkiisu wuxuu sheegayaa 100% volume-ka computer-ka codkiisa ahna wuxuu sheegayaa 100% tusaale ahaan haddaad rabto hadda inaan kuusii xaqiijiyo xagga haddaan tago sound ku dhufto waxaa arkaysaa inuu taagan yahay speaker soundska computer-ku 100% waxaa inoo xiga waan qaadanaynaa notification and action notification-isku waxyaalo badan oo computer-ku u baahan yahay iyo waxyaalo badan oo aad u baahan tahay inaad ka remove garaysid ayaa ku soo dhacaya qodobadan hadda aad u jeedid
ee kulli show notification unlock iyo aad u jeedid dhowrkan qodob tigta wada saaran all waxay ii saaran yihiin inaan helo for example allow notification to the sound inaan ogolaado inaan cod markuu ii soo baxaan helo haddaan usii guda galno haddaan u baahannahay marka inaan iska joojino notificationka simply off baan halkaa ka dhigaynaa marka notificationkii qeybo badan baa ka haray walow ay qeybo taagan yihiin qeybahan hadda taaganna waa qeybaha importantiga windowska u ah oo windows update-kii baa ka mid ah windows all features windowska ka mid ah waxyaalahaas waxa weeye wax computerka importantiga u ah badanaa calaamadiisu meelahan ay soo fuushaa markuu windowsku soo baxo meelahan oo kale uu keenayaa ama wuxuu ka muujinayaa taskbarkan ku muuqda notification for example markuu update qaato computerku wuxuu soo saarayaa notification halkan uu leeyahay demi oo restart gareeya wuxuu qaatay update noocaasa ama start markaa ku dhufatid oo aad tiraahdo shutdown ayaa waxaad ugu imaanaysaa halkan restart to update ama shutdown to update and something like that badanaa marka haddii aad degdegsan tahay hadda kii markaa ama waa sleep gareynaysaa ama waa u diraysaa updateku waa muhim computerka muhim buu u yahay marka haddaan sii daadegno programmada aan notificationka ka rabno waa kuwan for example labadan browser on weeye playgii on weeye suggestion soundskii on weeye all programskan oo dhan for example sidoo kale markuu helo wireless inuu ii sheego notificationku soo baxo explorerskii casperskii iyo play storeki dhammaan waxay u baahan yihiin in computerka markii aad u baahato dhammaan intaas notification uga baahato inaan on ka dhigto or ama inaad ka dhigto off haddaa off ka dhigto macnaha waxba kama helaysid wax notification uu kusoo bixi mayaan sidaa laaligeed waxaan kusoo koobaynaa casharkan saddexdaa waxyaalood oo ka mid tahay display sound iyo notification waxaa jiri doona oo aan kusoo dari doonaa commentigayna kusoo qori doontaan haddii lahaydno labadii week ama weekii mar imtixaan aan soo gelin doono oo sidaan oo kale aan usoo gelin doono oo aad ka soo shaqayn doontaan oo aad ku soo gelin doontaan insha allah haddii ilaahay idmo commentiga qofka sida saxa uga shaqeeyayna commentigan ugu soo jawaabaynaa oo ugu soo jawaabayaa qofka xataa khalday commentigan ugu soo jawaabayaa sidii saxda ay ku ahayd isagoo maaragtay markaa aan u tilmaamayno aad baa u mahadsantihiin soo dhawaada halkan waxay si joogtaa uga bixi doonaa casharada windowska ah waqti dheer buu qaadanayaa tartiibtaasaan ku wadaynaa si uu maskaxdiina u galo uu dego oo aad uga faa'iidaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin thank you very much halkaas caawa casharkeenu ku egyahay